qamar ma dhalow adiga qoorta gashay ogbaade u dulqaado. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي دقالي أنا وحنا هاي كينج سولفر واحد يقدر ونساء كينج سولفر ميديا run ahaantii aniga farxad iyo reen baa ii tahay marka idinka aan idin soo sameeynayo muuqaal sameeya idinka maalintiina haddaba sidii caadada inoo ahayd inta aanan u gudagelin muuqaalka xamaasada iyo xiisaha iyo xashxashka iyo xanta leh ugu horeyn laagta iska saar inanka yarka isku soo dhibayo inuu adiga wax ku fahansiiyo inuu adiga muuqaal ku soo gudbiyo inuu adiga ku madadaaliyo in adiga uu maalinkaada ku sameeyo laagta kala bakhilin commentigana muuqaalka marka eeda ah kulul ee dabka saaran ku soo dhiibo comment caafimaad qaba isla markaasna xanaf iyo xaajiin aan lahayn sidoo kale subscribe la'aan ha tagi waayahay waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo oo miiska inoo saaran gabadha la yiraahdo Ugbad Aragsan ee aad ka warhayseen xaalkeeda meesha uu ku dambeeyay iyo sidoo kale ninka la yiraahdo Qamar Suugaane iyo musicianka la yiraahdo Ilyas Idris balse waxaan rabaa in aan mid aan u dul istaagno midba aan ka hadalno xaalkiisa halka uu imanka taagan yahay muuqaal hore aan ugu soo hadalnay waxa jiray aan waliba silsilada inoo ahaa aan idin kula soo codsiinayay xogta marka iyada ah kulul ee taagan haddaba wixii hore waa la isla soo dhaafay maanta waxay taagan tahay barako ma leh xaajadu waxay taagan tahay barako ma leh waxay taagan tahay meeshii ugu kululayd waxay taagan tahay meeshii ugu xamaasada lahayd waxay taagan tahay meeshii ugu xumaad waliba haddaba maanta waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo dhowr waxyaabood oo aad idinka aad uga yaabo doontaan hadii la yiraahdo ugu horeyn halkan soo eeg halkan soo eeg balse marka hore aan ku hordhaco Ugbad Aragsan waxay leedahay Instagram aan lagu qaldi karin inuu yahay Instagram fake ah ee uu qof kale isticmaalayo qof kale inuu isticmaalayo laguma qaldi karo maxaa yeelay userka qof kale markuu isticmaalayo waxa uu qarinayaa inuu isticmaalo isaga wajigiisa muuqaal inuu soo dhigo ayuu qarinayaa taas hadii uu muuqaal aan isiraahno ama isdhahno meel kale ayuu ka soo qaadi karaa oo uu soo dhax dhigi karaa la soo dhaaf TikTok baa sameysatay oo ku soo shargareysay halka iyada ah Instagram-ka isla ciwaankaas TikTok ma adan qoraalka yeelaya ya haddaba waa Instagram waa account aan soo xaqiijiyay nadiif ah la isku hubo inay iyadu leedahay haddaba maxay tiri aan idin akhriyo waxaan idin hayaa 1 2 3 4 5 shan cadeen baan idin hayaa rabaa inaan idin la wadaago cadeynta ugu horeysa waxay tahay muuqaal ay soo dhigtay dhawaan barteeda Instagram waxay ku leedahay iyada iyo xaajigeeda wada sawiran waxay leedahay qalbiga adaa ila xukuma my Ilyas Idris calaamada marka ida loofna ay soo raacinayso qalbiga adeega ayaa ila xukuma my Idris something Ilyas waa musicianka aan ku xamanayni inuu yahay midka maanta qabo haddaba shaaca ayay ka qaaday halkaan waad ka arki kartaa shaaca ayay ka qaaday in uu yahay xaajigeeda cusub adeer ya waxa la yiri xaaje hadii aan loo feedin sida daba areeyay ma caadi ma noqoto marka waa naaglaan dheer ah kabta wallahi aysan kabta ku galin waa lixaaniyood cadeynta labaad waxay soo dhigtay tiri waa ka TikTok-geygii follow soo dhaha reer TikTok waa iskeenay maxaa saaran waad arki kartaa iyada iyo Ilyas Idris ka sheegaysa ee musicianka ahaa wali waa reer Djibouti waxaad gartay ma baa la sawiran profile-ka TikTok-ga kaasba u saaran waxa u qoran @ugbad/kan hoose Aragsan jidinta hoose official Ilyas ka laftirkiisa cadeen baa idinkaga hayaa wuxuu leeyahay sawir wuxuu soo saaray ay la sawiran tahay oo isku dhagan yihiin aad ay isugu dhagan yihiin wuxuuna hoos ku soo qoray wuxuu leeyahay su'aal waad weydiin doontaa bal iska kay weydii macnaha inay xantani adeer kulusha iska ogyahay labada cadeen ugu dambaysan rab in idin la wadaago aad ka u balaaran waxay kala yihiin waxay leedahay asxaabteeda waxaan ahay travel baan ahay
macnaheedu waxaan ahay qof safar ah waxaan ku sii jeedaa xagga iyo Djibouti insha Allah waan isla socon doonaa asxaabteeda reer Djibouti sidoo kale waxay leedahay coming soon heeso cusub iyo musicianka Ilyas Idris hore ma looga baranin inay musiciankaas magacaawdo hore ma looga baranin inay Djibouti ay u aado sida lambar 4 iyo kaawagoday ee meelaha agteeda ah hadaba xagee la socdaa Djibouti ama Djibouti sa u taqaanidba okay yaa raacaya Ilyas Idris qamarkume qamar ma dhalo maxaa ku dhacay cadeen adeer waa iska fahmi kartaa ma doonayo xanta markay yara jiqtaya aad loo fahaya ma baano ugu dambeyn Idris Ilyasku oo Instagram-kiis uu cusub yahay oo saas aan u shacbaxsanin hadda inta iyada u sameysay ay boorka jafayso waliba iyada shoot out u sameysay baa wuxuu soo dhigay isagana sawir iyadoo ay leedahay aad u cajiib ah isla markaasna waxa uu ku soo qoray coming soon arooskeena cadeemahaas oo dhan waxaad kala socon kartaan shaashada hadaba waxba laga qaban karo ilaahay abuurtay lama arko soo xagartay naagtanu waa naag laandheer ah 16 xaniyooda kabteedana kuma gasho adeer qamar ma dhalo iyo qamar naag buusan yeela iyo qamar baa ku qaba iyo qamar baa kan ka dhacay iyo ogbaad waa miskiin war ogbaad waa shar yaashan in ku soo duulin waa naag afkeedaas oo ka baxayo xaar kabteedo idin ma gasho adeer xantani waxa ka soo kordha iyo Djibouti xaaladeeda iyo war anagu GPS baa igu xiran GPS baa sida igu xiran saanta arkaysaan anigu waxaan nahay King Safar waxaad iga daawanaysaa King Safar Media halkan isha ku hay xanta ma sahlano mid kale muuqaalkan ku xiga dirisle iyo dameerada xunka ah ee uusan aqoonin ee iyagu shaashada ka daawado jawaabtooda way arkayaan salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh